Masraxa caanka ah Gillette ee dhaca magaalada Paris, caasimadda Faransiiska ayaa caawa lagu qaban doonaa xafladda lagu bixinayo abaalmarinta Ballon d'Or. Xafladda oo noqonaysa midii 68aad ee magaalada Paris ayaa ka bilaabanaysa caawa marka saacadu tahay 4:45. Halka ayaa lagu bixin doonaa ilaa 10 abaalmarin oo kala duwan. Ciyaartoy badan, maamul, macallimiin ayaa halkaasi ku sii qulqulaya kuwa oo doonaya inay ka qayb galaan xafladda abaalmarintan oo ah mid lagu casuumay halka qaarkoodna yihiin kuwa markii la eego in halkaasi doonaya in abaalmarintaasi ay soo qaataan. Ciyaartoy badan ayaa u sharaxan abaalmarintan halka qaarkoodna yihiin kuwa ugu cadcad ee abaalmarintan ku guuleysan kara. Waxaa la bixin doonaa xiddiga ugu wanaagsan adduunka, gabadha ugu wanaagsan ama laacibada ugu wanaagsan adduunka. Waxaa la bixin doonaa goolahayaha ugu wanaagsan abaalmarinta loo yaqaan Yashin Trophy. Waxaa la bixin doonaa daayirka ugu wanaagsan ee 21 sano ka hooseeya ee loo yaqaan abaalmarinta Kobe Trophy. Waxaa la bixin doonaa macalinka ugu wanaagsan sanadka. Waxaa la bixin doonaa macalimadda ugu wanaagsan. Kooxda sanadka ee wiilasha ayaa la bixin doonaa iyo kooxda sanadka ee gabdhaha. Gerard Mourou Trophy ayaa la bixin doonaa abaalmarinta loo yaqaan goolkii ugu wanaagsanaa ee adduunka laga dhaliyo. Waxaa la bixin doonaa shaqsiga ugu wanaagsan oo sameeya hawlo shaqo dhanka isboortiga ah. Ciyaartooyda u sharaxan waxaa qayb ka ah ee la soo xulay Jude Bellingham, Hakan Calhanoglu, Dani Carvajal, Ruben Dias, Adem Davrak, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Adama Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Rudiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior kan ugu cadcad abaalmarinta, Vitinha, Nick Williams, Fred Wirtz, Greenshack iyo Lamine Yamal. Dhanka gabdhaha kuwa badan ayaa sharaxan abaalmarinta. Barbara Banda ayaa qayb ka ah iyo gabadha lagu magacaabo Barmati oo Barcelona ah. Lick Bronze ayaa qayb ka ah gabdhaha abaalmarintan liiska ku jira. Gabdho badan ayaa jira iyagana la soo xulay. Dhinaca kale goolahayaasha waxaa tartami doona abaalmarintan loo codeyn doonaa oo midkoodna heli doona Diego Costa, Gianluca Donnarumma, Andre Lunin, Magnini, Emiliano Martinez, Yunus Simon, Yanni Sommer iyo ninka lagu magacaabo Williams. Ciyaarta waxaa tartami doona abaalmarintan midkood heli doonaa Pau Kubarsi, Alexander Garnacho, Arda Güler, Karim Konate, Kobe Mino, John Navas, Lamine Yamal iyo Zaire Emery. Macallimiinta waxaa sharaxan Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Luis de Lafuente, Gini Berra, Gasperini, Pep Guardiola, Lionel Scaloni. Hablaha macallinimada waxaa u sharaxan Sarina Wiegand, Philippe Patau, Emma Hayes, Jonathan Arthur Alia iyo macallimiin kale oo hablaha. Kooxda ugu wanaagsan sanadka waxaa u tartamaya kooxaha Borussia Dortmund, Girona, Bayer Leverkusen, Manchester City iyo Real Madrid. Hablaha kooxda ugu wanaagsan waxaa tartami doona Barcelona, Chelsea, Lyon, Tottenham iyo Paris Saint-Germain. Waxaa jiri doona abaalmarino shaqsi ah halka lagu bixin doona iyo guulooyin kala duwan. Fair play ayaa qayb ka ah iyaduna waa la bixin doonaa oo ciyaaryahanada qaar ay sameeyeen waxyaabaha wanaagsan garoomada dhexdiisa. Sida ay noqon doonto abaalmarinta Ballon d'Or caawa Rodri iyo Vini Jr. oo kuwa ugu cadcad abaalmarinta tartami doona halka Vini leeyahay waa kan 90% abaalmarintan ku guuleysan kara. Hadi ahaan yaa isleedahay u qalma.